maanta waxa weeyaan qaybtii labaad programkan wadnay la yiraaho fikirka lagala dhiciyay saa u bedeli kartid iyo waxyaabaha ka hor yimaada waxyaabaha lagala dhiciyay si loo xilin karo marka maanta waxaan ka hadlaynaa waxa la yiraaho kelmadda la yiraaho midgaan dad badan baan arkay oo ciidaha ayaga ah oo magaca ka cararaya oo magacaas isaga la haray meel kastaba mahma uu tacliim u barto oo meel uu gaaro marka kelmadda lagu yiraaho waxa la yiraahaa uu kala daataa marka iyadoo sheekan ka sheekeynaya laba sheekood baan ka sheekeynayaa تقول صح وين قبل بماني لا صوها بشيء تلفوني صوت درتي واحد قلت لي عم عدنان كلمة مدقان من قبيل با مسواعي وعن كوري عليك وحا بويري واحد ترددنا وحاليا واعي ضدنا وقبيل بيلي مركا وحن كوري واي وحن كما تالينا adigoo suuqa la saddex gabdhood la socda midna ay tahay saaq midna ay tahay wajeerteen oo suuqa qabateen inkoo suuqa socda ayaa qofka wuxuu yiri midgaano ma garatay qofka kaliya soo eegaya waayo marka kelmadda la yiraahdo adigoo musamaha kasitri ha marka waxaan ku yiri waayahay waxa uu eegtay sababka adigu asocotay oo joogsatay waa maxay waayo dib qabiilkaagii ka carrisay weey ma garatay marka lagu yiri midgaan markii la yiri adigu ba soo jeestay waayo adigu waa tahay midgaan wax laga qabiil ma aha marka ma garatay marka mujtamaca Soomaaligu wuxuu inaga dhaadhiciyay kelmadda qabiilkaagu waxay kaaga dhigay marna markuu ku tilmaamayo qabiilkaaga aad tahay qofkaas uu yahay wuxuuna waa midgaan weeyaan ma garatay marka waxaan ka codsanayaa magacaaga qaado oo cidna u joojin waayo magacani isaga ayna la haray oo isaga ayaa xaalkii maanta dadkan ummadan ay joogan ma garatay waxana maskaxda ayaa laga gumeystay wala gaadha dhiciyay waxyaabo badan oo qalad ah marka maanta ma kasitri ha marka waxaan ku yiri waayahay waxa uu eegtay sababka adigu asocotay oo joogsatay waa maxay waayo dib qabiilkaagii ka carrisay weey ma garatay marka lagu yiri midgaan markii la yiri adigu ba soo jeestay waayo adigu waa tahay midgaan wax laga qabiil ma aha marka ma garatay marka mujtamaca Soomaaligu wuxuu inaga dhaadhiciyay kelmadda qabiilkaagu waxay kaaga dhigay marna markuu ku tilmaamayo qabiilkaaga aad tahay qofkaas uu yahay wuxuuna waa midgaan weeyaan ma garatay marka waxaan ka codsanayaa magacaaga qaado oo cidna u joojin waayo magacani isaga ayna la haray oo isaga ayaa xaalkii maanta dadkan ummadan ay joogan ma garatay waxana maskaxda ayaa laga gumeystay wala gaadha dhiciyay waxyaabo badan oo qalad ah marka maanta kelmadda aan ka baxno oo maanta horumar gaarayno laana maanta hadda meel kasta gaadid wax kasta aad baratid marka kelmadda lagu yiraaho confuse baa ku imanaya oo wax xanaaqaysa marka anigu waxaan oran lahaa dadka iyaga laba ala soo galo magaca ya ama qaata oo de marka magacaaga cay laga dhigo u dagaalamo u dood amba yaa midgaan ma yihiyo ma garatay haddii la yiraaho midgaan agubanina anta sallahay sheekada labaad waxay tahay ninba maalin aniga yimi wuxuu gurniyo عدنان ونيشن كصومالي كنت ونيشن حن قبيل كيني تركيا ما جعلا وكسم كروايو وحين ما كساوت تفتح كوري ومدقان باطهي ساسات هاي وانن بخت عني وانن ساس وكره المهم كرواي هي عضو شخصية هان ما قناع سنتها هاي كلمة معيبة بسوى قبيل وحين عيبة أنا هايستا وحين كرواي هي هذه عيتها هاي أنا جا عيمو هايستانو قبيل بنا هايستا مركا magaca ala keeno adoo ka xanaaqana ka bugal waxa dhacay subhanallah ilaahay ma ku doonayto wax tuso dadka ma
maalin labaadkii subaxnimadii anakoo shaqada subaxnimadii ka soo baxnay ayaa oday Soomaaliya ayaa baska aan ku jirnay soo fuulay isagoo soo fuulay ayuu nin Masriya maagay ninkii Masriga ahaa ee qayluweynta ahaa markuu uu maagay kii odayga Soomaaliga ahaa wuxuu ugu jawaabay waxa midgaanka ayaga qabta ninkii shalay hore ilaha anigu ma yihiin midgaan baan arkay xagga dambe baska intuu ka soo booday ma garatay oo ninkii feer odayga feer kala daalay yani xataa muu eegin odaygana waa oday weyn oo baan arkay xagga dambe baska intuu ka soo booday ma garatay oo ninkii feer odayga feer kala daalay yani xataa muu eegin odaygana waa oday weyn oo 70 jir ah waa dilay kowkasi waan ka qabtay markaan ka qabtay waxaan ku niyahow Saudi Allah hadan midgaan meeyay waxa ku damqay ما أساسي أساس أساس وحنقول إنه إصلاح الشغل ما قرأت غلط كذي قاعد شلنا واحد هذا أنو متقال ميه إما كان مكي متقال يري كل جنب بصوب ودي مركا أضيقا حال ما بحنسا وايو مقع يجا نوع عقو كلا يا عيك دقيقة مرنا واحد هذا هي قدام قنسا مرنا واحد هذا هي قبيل كي معها مركا أنا واحد لا هي ضد كيجا قبوية اللي يراهو أم متقال يراهو مقع قبوية هذا حتى اللي يراهو دواء مدقان كبو وحا يا أنا لقاعد عندي علم مقع عن قبوية ومقع في عنوة قب يا وحا مقع عنوة مدقان وأساس مركا يبقى أي قفصة ما لقيتها قبوية أنا مركا وحا عركيتها مدقان تاي مركا أنا ودتك يا وحا كعود سنة يا أنت وحا أي كبحان أو مقع عن يا أي قاتان أو أتقالمان أو مقع عن يا خواعي سيس كده دعيان مركا يعني اللي قد وخن يعني تام كينا كله من wax kasta aan sameeyno urur kasta aan sameeyno kelmadaas oo soo istaagaysa qabiilo badan ba ka cararaya hadhoona iyaga laftoodii ba marka loo yeelana magacii waxa la yiraahdaa dagaalamaya amba abaha saa iyaga loo jeedo marka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh